ساك إبراهيم حقيه وسعتها. هيبو ساك waxaan u socdaa dagaal qaran oo xal xilligii dambe lagu soo wargeliyay. waxa laga yaabaa dagaalkan inaan ka soo laaban waayo markuu kula dardaarmayay dardaarankayga dhageyso. Habixin iska joog aniga kuu baahan cunugaaga kuu baahan xagee noo cileynaysaa wali cunugtaada aaba kuma lihin haddii aad dhimatid maxaa u dambeyn doono. xaaskayga hibo aniga waxaan ahay askari qaran waxaan u shaqeeyaa dalkayga waxaan ciidamada ugu biiray inaan difaaco dalkayga iyo dadkayga. saakay waxaan u socdaa dagaal qaran waxaan ka hortegayaa cadowga raba inuu dhammeeyo dadkayga. waxaa laga yaabaa in aan soo laaban waayo oo anigoo dalkayga difaacayo aan dhinto. waxaa rabaa inaad ubadkayga xafido kuna barbaariso diinta iyo dowlad jacaylka. waxaan u sheegtaa gabadhayda in aabeed uu ahaa gees u geeriyooda dalka. weligaagana ha aaminin dowladda u dhintay ninkaaga ma daryeesha ciidanka balse waxaad aamintaa dalkan ninka u sarreeya iyo ninka u hooseeyaba in ay u siman yihiin difaaciisa. tawakkal cala allah ilaah ayaan tala saartay waxba igama halaaba ay gacliso.